asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeenimo xogta cayaaraha qodobada ugu waaweyn warkeenana waxaa ka mid ah ueva oo war ka soo saartay in argentiin lagu martiqaadayo koobka ueva nations league zalatan ibrahimovic oo soo xushay shaxdiisa ugu ficneed abid ciyaaryaankii westham arnautovich oo ku biiray horyaalka dalkaasi shiinaha kooxda kubadda cagta liverpool oo heshiis la gaartay cayaaryahan fulham u cayaara qodobadaas iyo weliba kulamada caawa koobka qaramada qaaradda afrika ee ka soconaya dalkaasi masar ayaa warkeena idinkugu soo gudbin doonaa balse haddaad ku cusub tahay janalkan subscribe inoo saar aynu ku horeyno ueva ayaa war ka soo saartay in xulka qaranka argentiin lagu martiqaadayo koobka ueva nations league ee qaaradda yurub laga cayaaro oo xululka ay cayaaraan 2020 ilaa iyo 2021 ueva ayaa waxa ay beenisay warar sheegayay in markaasi loo soo bandhigay xulka qaranka argentiin inay ka qayb qaataan koobka qaramada qaaradda yurub cayaaryahanka kabtanka xulka qaranka argentiin leo messi ayaa waqti dhow waxa uu eedeen ballaaran u soo jeeday xiriirka koobka america isagoona ku tilmaamay in corruption iyo wax isdabamarin fara badan halkaasi ay ka jiraan leo ayaa waxa uu arrintaasi soo jeediyey xilli ay u tartamayeen koobkaasi inay ku guulaystaan oo markaasi samafinalka ay cayaarayeen waxa uu eedeen ballaaran u soo jeediyey far oo aanan muuqaal baahiyahaasi aanan la fiirinin qaladaadka inta badan xulka ka soo horjeeday ay markaa samaynayeen taasi oo isagu aad uga caraysiisay oo sidaasina ay uga hareen ueva ayaa waxa ay sheegtay in markaasi arrintaasi waxba aanan ka jirin laakiin waxaa la sheegay markii hore in ueva ay weydiisay xulka qaranka argentiin inay isaga soo baxaan kooba america oo markaasi qayb ka noqdaan ueva nations league laakiin haddii ueva ay ogolaato arrintaasi waxaa halkaa isku arki doonaa labada cayaaryahan ee loolanka weyn ka dhexeeya oo laba qaaradood ka soo kala jeedaan leo messi iyo cristiano ronaldo waxaa sidoo kale jira warar sheegaya in madaxweynaha xiriirka ueva markaasi fursad weyn arrintaasi u arkayo oo isagoo laftigiisa ka faa'iidaysanaya khilaafka ka jira kooba america iyo xiriirkiisa ee halkaa ka jira isagoo doonaya in markaasi ueva ay ku soo biiraan ueva nations league xulka qaranka argentina dhinaca kale kooxda kubadda cagta westham weeraryaankeedii hore ee lagu magacaabayay arnautovich ayaa waxa uu ku biiray koox ka dhisan horyaalka dalkaasi shiinaha marco arnautovich ayaa waxa uu markaasi lagu soo warramayaa in 22 milyan markaasi ugu wareegay kooxda shiinaha ka dhisan ee horyaalka lagu magacaabo china super league ee shanghai arnautovich ayaa waqtiyadii ugu dambeeyey waxaa aad loola xiriirinayay inuu garoonka london stadium iskaga tegayo oo uu ku biirayo koox ka tirsan dalkaasi shiinaha shanghai ayuuna ku biiray 35 milyan ilaa 44 milyan ayaa markaasi lagu soo warramayaa in cayaaryahankan markaasi jeebka ku shuban doono isagoo markaasi in muddo aan halkaa ku sugnaan doono maadaama isaga laftigiisa uu raadinayo lacag fara badan maadaama da'diisu imika ay tahay 30 sano jir cayaaryahankan ayaa wuxuu ka mid yahay cayaaryahanada ugu fiicnaa ee premier leaga in muddo ah ama sanadii ugu dambeeyay aad uga dhex muuqanayay sanadkan markaasi macsalaameeyey oo horyaalka dalkaasi shiinaha ku biiray dhinaca kale kooxda kubadda cagta liverpoolna waxa ay heshiis saxiix ah markaasi ku qaadatay cayaaryahanka kooxda kubadda cagta ee fulham ee premier leaga ka ciyaara cayaaryahankan oo 16 sano jir ah oo xulka qaranka ingiriiska qaybta yaryarka markaasi u ciyaarayay ayaa waxa uu sanadihii lasoo dhaafay aad ugu soo bandhigayay waxqabadkiisa dhinaca kubadda cagta isagoona markaa ay u arkeen kooxda kubadda cagta liverpool ee maamulka iyo weliba sidoo kale macalinka kooxdaasi in cayaaryahankan ay ka faa'iidaystaan Jurgen Klopp ayaa waxaa la sheegay inuu doonayo inuu sameeyo ciyaartoy da'yar oo kooxda liverpool markaasi aad ugu dhex muuqan kara oo mustaqbal wanaagsan leh waxaa la sheegay cayaaryahankan oo lagu magacaabo Elliot in markaa heshiiskan kooxda kubadda cagta fulham ay uga soo qaateen uu yahay mid markaa iyagu u arkeen in wax badan ku soo kordhin kara kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo liverpool desan ayaa maanta wax ka qortay heshiiskan kooxda kubadda cagta liverpool ciyaaryahan Elliot ay kula wareegtay waxaana la sheegay sidoo kale ay aad u doonayeen kooxo dhowr ah ciyaaryahankan oo markaasi ay ka mid yihiin kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Wolves
sidoo kale ay jireen kooxda Real Madrid, Paris Saint-Germain, Barcelona ayaa ka mid ah Bundesliga dalka Jarmalka xitaa aad ay ciyaaryahankan loogu doondoonayay waqtiyadii ugu dambeeyay ee lasoo dhaafay. Dhinaca kale weeraryahankii xulka qaranka Sweden Zlatan Ibrahimovic ayaa waxa uu soo xushay shaxdiisii ugu fiicneed abid markaasi isagu uu u arkay inay tahay shax waali ah oo markaasi aan marna laga samri karin. ciyaaryahankan oo u soo ciyaaray kooxo dhowr ah oo ay ka mid yihiin kooxa markaasi Zlatan Ibrahimovic u soo ciyaaray Ajax, Juventus, Barcelona, Inter Milan, AC Milan iyo kooxda kubadda cagta Manchester United iyo kooxda imika u ciyaaro dalkaasi Mareykanka. waxaana markaasi waxyaabaha xiisaha leh ee shaxdan isagu soo xushay dadka ka yaabisay ahayd in marka isagu keliya isku soo qaatay 11 ciyaaryahan haddii ay ahaa lahayd goolhayaha kooxda isagu soo xushay oo isagu ah Zlatan ah, afarta dambe oo isagu ah iyo qadka dhexe oo isaga ah garbihii weerarka iyo weliba nambarka 9aad oo isagu ah wax ciyaaryahan ah kale oo isagu markaasi u arkay inay ka wanaagsan yihiin oo ku soo dartay ma jiro. kaliya isaga ayaa 11ka ahaan soo xushay kooxda markaasi isagu shaxaan soo xushay. dhinaca kalena ciyaaryahanka xulka qaranka Brazil Neres ayaa waxa uu sheegay in mustaqbalkiisa markaasi uu yaalo dalka Netherlands iyo kooxda kubadda cagta Ajax isagoo markaa waqtiyadii ugu dambeeyay ama bilihii la soo dhaafay aad loo xiriirinayay kooxaha Manchester United, Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona iyo kooxo kale oo waaweyn oo qaaradda Europe ka mid ah. Neres ayaa waxaa markaasi maanta warbaahinta la hadlay oo sheegay in markaa mustaqbalkiisa uu yaalo gudaha dalka Netherlands gaar ahaan kooxda Ajax meelna uusan ugu soconin. 22 jirkan ayaa waxaa aad markaasi u soo shaacbaxay koobkii UEFA Champions League ee dhawaan ay ku guuleystay kooxda kubadda cagta Liverpool oo markaa isagu iyo dhammaanba ciyaartoy dhowr ah kooxda Ajax u safanayay magac iyo maamuus ay ku yeesheen oo qaarkood la iibsaday sida De Jong, De Ligt oo isagaba imika aad loo raadinayo iyo Neres sidoo kale Van Dijk ayaa ka mid ah ciyaartoyda markaa waxqabadka lahaa markaasi sida weyn loo raadinayay. ugu dambeyntiina waxaan aadaynaa markan kulamada caawa dhici doona ee koobka lagu magacaabo koobka qaramada qaaradda Afrika oo dalka Masar ka soconaya. 2 kulan ayaa caawa dhici doona oo 1 saac habeenimo iyo waxaa soo gali doona kulan dhaxmari doona xulka qaranka Mali sidoo kale ay la ciyaari doonaan xulka qaranka Ivory Coast. kulanka kale aadka loo wada sugayo ayaa waxaa markaasi ka mid ah dalka Ghana iyo Tunisia oo caawa wada ballansan.